aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Culuw waxaan ahay Cam German Ifo banaanbaxa maanta wuxuu ku saabsanaa waxbarashadaanadii baa hoos u dhacday iskuuladanadii baa macallimiintii la daadiyay sidaas darteed waxaad arkaysaa iskuul ay dhiganayso 3980 arday oo maartay hay'adii gacanta ku haysay LWF ay sheegtay inay macallimiin ka noqonayaan 5 macallin sidaas darteed bulshadii Ifo way u cuntami weysan arrinta ayada waxay soo bandhigeen inay arrinta ku qanacsaneen inay dhibaato ku tahay in ilmahooda ay isku dhameyn doonaan galaasyaha marka maanta mudaharaadkaas jiray waxa maanta meeshana keenay dhibaatana soo kicisay dab dhariga baa la yiri kulaylka maxaa ka keenay karka dabka kulaylkiisa ka keenay marka waxa weeyaan maati yar baan haysanaa caruur baan haysanaa haween baan nahay umulaan nahay curyaamaan nahay waxa meeshana keenay waa dhibaatada na haysa awgeed hadda waxa jira iskoolihiiba nalaga xidhay 3,000 oo ilmood iskoolkay dhiganaysay 3 macallin baa la yiraahdaa looga dhigo maxaan ku idhahaa macallin 3 macallin ha looga dhigalay 3 macallin 3,000 oo ilmood waxaan bari kartaa iskool magacaygu waxa la Aamin Xuseen kana keenan waxay tahay waxbarasho la'aan daawo la'aan biyo la'aan iyo cuntadii naga sii yareeyay oo 2 bilood la dhahay 2018 macallin yaras la bilaaway haddana 2021 kala tagay xataan taaganahay hay'adda UNHCR waa hooyada qaxootiga farahay naga qaaday waxaan codsanaynaa caalamul islaam waxaan ka codsanaynaa sidii waxbarashadeena dib lagu soo celin lahaay oo ilmaheena waxbarashada dib loogu soo celin lahaay oo macallimiinteena loo keenay lahaay oo daawada nala sii lahaay daawo ma haysano oo waxbarasho ma haysano oo raashin ma haysano caalamku waa naga jeestay meel kale u jeestay caalamka waa Yacquub Maxamed Cabdi ka socda iskuulka Xanaana Primary School Ifo iskuulaha ku yaalo dhan haddana hay'adihi samafalka maxay leeyihiin macallimiin ma hayno 3 macallin baa iskuulka u heena marka baahi fara badan ayaan tabeena waxa ugu weyn meeshan loo degan yahay maxaa waa waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka muddo badan ayaan xaafadaha joognay oo caafimaadka taxadar aan u jiifnay oo waxbarashada anaga aan ku weynay oo coronavirus aan la jiifnay haddana markii iskuulkii la furay aan isku soo laabanay maana helin waxbarasho quman annaga nafta anaga isbareynay maana helin macallin iskuul maana helin macallin mathematics dhigo maana helin sida Kiswahili oo kaleeto dhibaato fara badan ayaan soo wajahday haddana waxaan taaganahay heer loo 3 macallin ayaan leeyahay marka hay'adaha samafalka maxaan ka codsanaynaa waxbarashadii inay macnaha ay nala buush gareeyaan magacaygu waa Bashir Cismaan Dhawow ku nool xarada qaxootiga Ifo waxaan dhigtay iskuul Horseed Primary School maxaan ka cabanaynaa maanta macallimiin la'aan iskuulkeena waa iskuulada ugu badan waxaa dhigataa 2500 students dhigataa marka macallimiin waxaan loo keenayaa 3 teachers only 3 teachers marka ma naafacaysa 3 macallin kaliya anaga waa maya marka waxaan rabnaa macallimiin in loo keeno haddii ay dhacdona macallimiin la'aan iskuulka anagana laga reebi guurka nagu badani unwanted pregnancy meesha imaani marka waxaan rabnaa in iskuulada dibna loogu soo celiyo macallimiinteena dibna loogu celiyo waxaan rabnaa hay'adda LWF ay sidan ugu dhaanto magacaygu waa Deeq Cabdiqaadir Xaashi waxaan ka socdaa iskuulka Horseed waxaan ka cabanaynaa macallimiin la'aan saaid noo hayso iskuulada waxa iskuulka ugu yar waxa waaye 1500 iskuulka ugu yar maxaa la yiri 3 macallin la u dhigayso macquul galna ma ahan marka waxaan doonaynaa macallimiin in loo keeno oo nagala caawiyo LWF na sidayna noo dhaanto hal sano naga qasaaray oo corona dartiisa haddana marna sanadkii noo qasaaro bis saddexaad waxaan sameeynaynaa KCBE marka waxaan codsan lahayn oo baryeena in macallimiin loo keeno fadlan ay seehan waayo waxa dhici karo macallimiin la'aan haddii dhacdo iskuul la'aan waxa badan karo gabdhaha oo early marriage ku bato wiilasha oo xashiishka cabaayaan darbiyaasha seexanayaan wax walbo marka codsan lahayn macallimiin in la daryeelo magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud oo ka socda iskuulka Hormuud Primary School maanta inta isku keenay macallin la'aan jirto awgeed anaga ahaanteen had marka aan ka hadlo iskuulkeena Hormuud waxa joogto ardayda oo gaarayso 2,000 intaas oo ay yihiin arday ku dhow 60 kor waxa sii dhaafayso SNE ayadoo saas ay sii tahay macallimiintu waxa la hadda waxa lagu soo reebay 3
saddexna macallimiintaas labadaas kun oo arday ma anfacayso suurtagalna ma ahan saddex macallin sin stand aid oo hal stand aid oo kaliya wax uma qori karto waxna ma bari karto macallin la'aan haday dhacdana waxyaabo badan iska dhici karo marka macallimiintana marka horena ayagoo maadaama iska yareen yiraahdo Leyli Yuusuf Cabdikariin oo ka socda iskuulka Xornimo Primary School maanta waxa meeshaan keenay waxa macallin la'aantana hayso darteeda meeshaan keentay waxa isku soo banaabaxnay macallimiin rabnaa macallimiintii dhan way naga wada tageen waxaas waxa yeelin maahan maanta waxaan u soo baxnay waxa macallin la'aanta darteeda marka waxa rabnaa hay'ad inay wax nala qabato macallimiin noola keeno marka arinta ka hadlay taas waa aan banaanka ugu soo baxnay maanta marka maxay walwal ka qabtaan anaga waxbarasho la'aan aan hayso macallimiinta dhan way naga tageen tookada inaa KCPE sameeyna rabnaa marka macallimiin fiican in noola keeno ama macallimiinta noola soo celiya rabnaa oo macallimiinta noola soo kordhiyo sanad dhan anaga qasaaraha hadan inaa noola darmaahan macallin la'aan nala dhigo macallimiintana waa rabnaa in noola keeno ana jiilkii hadda soo kacaayo oo wadankeena hooy wax u qaban lahaa wadamada islaamkana anfici lahaa wadamada adduunkana caalamkana magac ku yeelan lahaa oo kor u qaadi lahaa laakiin ma ahan in hoos nala dhigo discrimination lagu sameeyo waxaan u baahanahay in nala faquuqin oo kor nala qaado nala sabood gareeyo sifa aan u noqono hadhowdii dadkii oo anfici lahaa Kenya Soomaaliya ay wadamada dhamaantood oo wax aan u qaban lahayn laakiin haddii maanta waxbarashadeena hoos loo dhigo oo macallimiinta nagala yareeyo macallimiin la'aan nagala dhigo magacaygu yahay Cabdirasaaq Aadan Shire waxbarashadii hadda anagoo waqti hore corona maarta sanad hore aad noo saameeyay oo corona maarta 7 bilood xaafadaha joognay oo waxbarashada iska xirnay haddana markii maanta iskuulada dib ugu soo laabanay 2 bilood aan soo baranay macallimiinta in haddana meesha laga wada saaro sababtoo annaga hadda waxaan sameeynaa bis taxdiil la gaaro imtixaan shahaada aan sameeynaa KCPE aan sameeynaa aan jecelna ilaa duura marka KCPE sifaan u sameeyno waxaan rabnaa macallimiin nala buush gareeyaan shaqooyinka aad ku adag oo noo yaal saawgeed lama tartami karna down Kenya haddii aanan haysanin macallimiin maarta annaga nala buush gareeyo oo maarta waxyaabaha casharada nala buush gareeyaan